daawadayaal kusoo dhawaada Cawka Legacy waxaa khadka si toos ah ugu jira oo wareysi kooban la yeelan doona Ayaale Boobe Yuusuf oo jooga wadanka Ireland. Ayaale kusoo dhawaada Cawka Legacy. waan ku dhawahay maxamed adiga iyo beejkaaga Cawka Legacy dhamaan aad ayaan idin soo dhaweynaya waan idin salaamaya. waan gartay waxa weeyaan waa channelka oo YouTube ka aan ku leenahay Cawka Legacy iyo page kuwa waa runta Ayaale Ireland bad ku nooshahay oo hadda aad ku suganto khadka si toos ah waad maqlaysaa si wanaagsan baan maxamed ku maqlayaa. waayahay Ayaale waa kuma daawadayaal waxaan doonaynaa Ayaale inaanu barano ku dhashay Duriya ku barbaaray Duriya oo ahayd xaruntii saldhiggii ugu horreeyay ee sanamayaan ku dhashay waxaan ku barbaaray magaalada Gabiley oo ka bilaabay Maxamed Quraanteedii iyo dugsigii hoose. haye waayahay usii amba qaaday oo hadda ku sugan oo dalkay jooga oo dalka dibadiisa ayaad imika joogtaa baan u malaynay dalkaad ka joogta waa hagee waa Ireland laakiinse markaan geedigii waxbarashada sii watay dugsigii dhexe waxaan kasii amba qaaday oo kasii bilaabay magaalada Hargeysa caasimadda Somaliland ilaa heer jaamacadeed kadib waan ka baxay oo waxaan u gudbay dalalka Khaliijka iyo wadamada Geeska Afrika ee Suudaan ka mid tahay iyo Disaawo ka mid tahay iyo wadamada Khaliijka ee Imaaraadka ka mid yahay kadib oo si amba qaaday la China oo ganacsi muddo 10 sano ku dhow ka waday kadib waxaan u soo boqolay oo mid wadamada qurbaha gaar ahaan Yurub wadanka UK oo muddo 3 sano joogay imikana waxaan ku noolahay oo deganahay magaalada Dundalk oo u dhow oo hal saac u jirta caasimadda Ireland ee Dublin. waan gartay Ayaale waad fara badan tahay Ayaale maanta waraysigeygii adaa ay kala doori doona Ayaale oo ilaahay taakara lahaade Ayaale nin fara badan baad tahay waa suugaanyahan baad tahay suxufiina dhinac baad ka yar tahay oo de waa suxufinimada waa soo barataan u malaynaya oo bariina saxaafada ku jirtaan waa ya hadaan qaldanayn hata jaamacaddan dhigtay weliba dadkaan isku ardayda classmate jaamacadda ahayn jaamacadda Baaneer waxa kamida oo maanta dadku garanayaan oo ka caana dhalintii bariga classmate ila ahayd ninka Jaamac Buulada ee maanta ku jira xildhibaanada golaha wakiilada ee Somaliland. waan gartay waaya Ayaale waxaan doonayaa ganacsigana waad ku jirtay siyaasina waa tahay oo siyaasadda dhinac baad kaga yar jirta socialka imika waa ka farabatay oo de samankii hore iyo samanka maanta isku mid ma aha oo live baba la soo galay wadiga khadka ba imika aynu iska wareysanno Ayaale waxaan rabaa inaad ii kala doorto de waa ku keebaan ka soo qaata adaa ii kala dooraya halkaan kaa wareysana ma ganacsiga ma siyaasadda ii kala door baan kula wadigu farabadatay maxamed inkastoo inta aan ku jiray ma ay tahay inta qaybooda ugu muhiimsan nolosha waxaan ku odhan lahaa intaba inoo xun de horta intaba wax la kala dhigan maaho intaba waynu ka hadlaynaa waayahaynu ku horeynaa qaybta suugaanta ayaynu ku horeynaynaa ilaahay ha ka raalahaade Ayaale Boobe oo qoraa Soomaaliyeed ayaa ku dhalay oo caanka ah oo de mujaahid Boobe Yuusuf inankiisii baa tahay horta Ayaale ma kii guro dambeeskii baa tahay mise bartankaad ku jirtay ila qaab baa ka weynaay waxaan ahay qoyska reer Boobe Yuusuf taale guri dambeeskii ugu weynaa. waan gartay aabbo waa nool yahay hooyana waa nooshahay ilaahay cumriga caafimaadka loo siiyay waryaa nin waalidku u nool yahay oo waryaa Ayaale maasha Allah ayaan ku leeyahay waayahay Ayaale halka suugaantayna dib ugu yar noqon doonaa su'aalaheeni horta waxaan ka horeysinaa intaanan u sii gudagelin waraysiyadii aan ka yeelan lahaa 10 su'aalood ayaan rabaa in aan ku weydiiyo sida ha si kooban baad iga jawaabaysaa Ayaale maxaad jeceshahay kalarkaad jeceshahay waa midabkee kaladhada la xidho midabkee ugu jeceshahay waxaan ugu jecelahay cadaan iyo buluug oo marka waa shaarkan imika aad xidhan tahay shaarkan laakiinse shaarkan waa dambasi laakiinse cadaan u badan waa yahay waan kasii gudbaynaa cuntadeed ugu jeceshahay
waxaan ugu jecelahay laxoox iyo muqmad. laxoox iyo muqmad waryaha ayaan la reer ma leedahay halkaan ku yar noqonay muqmadaas ayaa xasuusisay may weli reer maanta mise weligeedaan guursan. oo insha allah waad guursan doontaa waad ku tala jirtaa de inaad guursato ood mustaqbalka futureka insha allah waayahay kasii gudub ayaalow maxaad ka cabsoota amba aad ka baqataa shayga aad ka cabsooto waxaan aada uga cabsoodaa un ka baqaa weliba meeshu istaaga aanan weligii dib ugu noqon xayawaanka la yidhaha ee xamaaratada ee maska la yidhaha. o waryaa waa daalinkii baad ka baqatay waan gartay haye kasii gudub ayaalow su-aasheeda xigta waxaan ku weydiin rabay haddii iminka aan idhaahdo ayaale ina aan marti qaado oo aan meheblay kalabeyd ba inoo soo qabo kalabeyd baan kugu qadasameeya adigoo airline jooga diyaaradda ma soo goosan lahayd tiirkiyo daridii maad igu iman lahayd waan kugu iman lahaa waa bilqasab halkaan ugu jecelay waa deegaankaygii waana soo socotahay waa soo guuxaysaa waan ku ogahay waayahay halkaahaan kaga sii gudubna heesaha heeseed ugu jeceshahay heesaha ma dhegaysataa heesaha aada iyo aad haddaanan maalintii 3 heesood dhegaysan imama noqotaba waan gartay waa qayb noloshayda ka mida waa waxyaabaha aan ku noolahay een aqoonta inta ugu badan ka faa'iido een dooco een dhegaysto waa macallimiintayda ugu weyn baan odhan karaa hadday sugan tahay welibana sugaanta waxyaabaha lagu sii jecelahay een aadka u xiiseeyo waxaa ka mid ah naaxiyada amba ay dadku u yaqaanaan alxaanta iyo laxanadan aada u qiimeeyaa waan gartay waayahay heesta aan hadda idhaah ayaan leh heestaasu aada u jecel oon kuu saaro heesteed dooran lahayd ma heesii hore mise kuwa iminka mise kuwii dhexe may waxaan ugu jecelahay oon haddaan maqlo uu fadhiga aan uga kaco anu yaga waa heesuu qaadan heesay qaado allahu naxariistee saare axmed jaamac waxaa la yidhaha sida wagan gamaan faras ereyada waxaa iska lahaa cabdi cali weyd laxanka waxaa lahaa allahu naxariistee xaaji gujiis saddexdooduba way dhinteen sida wagan gamaan faras ayaan heestaasaan ugu jecela dadkuna waxay u yaqaanaan wehelkayga cashaqa dadkana saasay yaqaanaan heestaasaan ugu jecela ayaa le da-da aad tahay iyo heesta aad ii dooratay dee qoladii hore dadkii horead ka joogtaa ma ku idhaahda anoo kula kaftamaya hayo dadku way gu idhahdaan maxamedo waxaa lagu idhaha markaan meelaha ka doodayo amba siyaasad iyo aragti amba sugaanaan ku doodayo da-daadiyo ismale iyo waxaad ka hadlaysa laakiinse waxaan aaminsanahay qofku aad wax badan aqriyo wax badan dhegaysto wax badan weeleeyo korsiimadaada iyo aqligaagu way kala weynaanayaan waa taas sababta baan is odhan karaa waan gartay inagoo bartaa sugaanta weli kusii jidna oo su-aasheedu hadiidii ay tahay oo su-aaliyaan ku weydiinayay waa isla heestii waa heestiina waanu ku saari doonaa insha allahu tacaala sugaanta hadda waxa fankii iyo sugaantii iyo gabayadii halkay marayaan iminka heeso halkay marayaan waxa weeyaan dee laxankaad ka sheekaysay oo kale laxanku halku maraya samankan waad ogtahay waa technolojiyadu waxay gaadhay dee heesii hore ayaa dib loo koobiyeeyaa sidaynu dee aynu wada ognahay oo de aynu daawano iminka samankan aynu ku jirno tale iyo tusaale maxaad siin lahayd fanka iminka cusub fanaaniintan da-da yar maxaa tala aada u gudbinaysaa oo aad kula talin lahayd adiga oo de ehladii dee suugaanta kasoo jeeda ila qoraagii caaghaa ku dhalay tala halkaa maxaad uga diri horta janis aad u wanaagsan waad ishiisay su-aal ani badan doonayay inaan ka hadlana waad ishiisay waad ku mahadsantay haye fankan dambe si fiican baan u dhagaystaa waanan jeclaan lahaa fankaygu inuu horu maro maxamed waxyaabaha lagu soo koriyey waxaa ka mid ah anoo 6 jira oo 7 jira ayaa waxaan garanayaa aabba wuxuu ururin jiray fanka iyo suugaanta ee marka la igu idhaa fanaan hebel iyo abwaan hebel cajaladii heblaayo soo qabo ayaa cajaladihii kaaseetada rikoorka lagu dhagaysan jiray ayaa 300 oo kun oo cajaladood aan kasoo dhexgelin jiray cajalad heblaayo fanka iyo naaxiyada iyo alxaanta iyo ereyada si fiican ayoo soo kala bartay waxaad arkaysaa iminka heesaa lasoo wada qaadaya waxaad arkaysaa 500 oo heesood oo muusigooda laxankooda waxba u kala dhaxayn tusaale ahaan heesihii hore markaad dhegaysanayso
heesa ay saare axmed iyo qaadaan heede inabti abba markay soo gelaysa heestaa waxaad sii garanaysaa heesta soo socota baadisooc ayuu laxanku lahaa baadisoocdii alxaantu lahayd meeshii way ka baxeen marka tusaale ahaan ay khadrad daahiraysa aygu soo gelayaan waad sii garanaysay maadeer markay soo gelaysa waad sii garanaysay axmed cali cigaal markuu soo gelay waad sii garanaysay axmed jacanka markuu soo gelay waad sii garanaysay wallahi midabsanay markay soo gelaysa waad garanaysay laakiinse iminka heesta soo socota yaa qaadaya maxay tahay taasi waa taa horta alxaantii way dhimatay waana ceeb hargeysa oo hoygii fanka sugaanta in la yidhaa alxaan aan baadisooc lahayn oon kala duwanayn oo dee mararka qaar aan hargeysa joogay meelaha goobaha qaar markaan joogo habeen keliya waxaa lagu wada odhanayaa hebel baa wuxuu sameeyey 20 alxaan oo muusigii aan wada tumayo oo la wada codkii la wada duubayo aroorta mobilada eebikooda jira 20 heesood aqalgal ma aha markaan waraysyada aabba uu qaadayo amba aan anu ag joogo een abwaanintii horiyo mulaxmaystayaasha waraysanano sida xaajigu sidoo kale oon dhegaystay dee laxanku wax laga soo fikiraabay ahayd wax laga baaraandegaabay ahayd wax la soo baandheeyo oo lasoo kala miiro oo ummadda waxa loo geliyo laga soo fikiraabay ahayd laakiinse imika waxaad arkaysaa in yar bayskoole jabaaday habeenkiina seexdo waan silalaay dee waxaasi laxan ma soconayso aniga marka laxanka iyo midhaha la samaynayo waxaan waxa weeye inay qofkan koriyaan oo qofkan wax u taraan markaa dabiicta dambe anoo hadalkiina dheereeyo waxaan kusoo koobi lahaa wax micno loo samaynayo oon dhegaysan karayno wax micno leh oo waxaan tala siin lahaa ummadda idin dhegaysanaysa wax u kordhinaya oo micno u samaynaya oo u cashara oo faa'iide ay ka heli karaan oo aqliyad iyo mujtamac ahaanba dhisigala soo saara laakiinse waxaad idinku isugu sheekaynaysaan oo sheekaa yaaba fankan damaniyo sheekaanu arkaa markaa kaa yar dhexgale ayaalo ma tahay dadkii laxanka samaynayay amba dee ereyada abuuraya ee hal abuurka lahaa ayaa imika sii gaabaabsiyo aan jirin ma noqonaysa halkaa waxade beerka imika oo kale ayadee hees maalin dhaweedaan la yaabay ayadee hees laga dhigay baan arkay ayadee waaman yaabayba adigoo tii hore la yaabo raabka heesaha samaynaya dhanna kama noqonayso qofku waa inuu wax isbaraa oo uu dadaalaa maanta hargeysa waxaa ku nool dacar baa ku nool xasan geni baa ku nool axmed saleeman bidaan ku nool intaas oo dhintay baa ku noola mulaxamisteyadaa ku noolaa tii qaarey tii ayaa muqdisho ku dhintay qarshiile ayaa ku dhintay jabuuti oo ragalaxnada aan ugu jecelahay ninka qarshiilo leedheeray jabuuti ee codka calanka jabuuti iskale oo ninkan alxaantiisa ugu jeclaa oo alxaan fiican ku ahaa dadkaasoo kale wuxuu in badan waa dhinteen alaa unaxariista abwaano horta dad badan waa dhinteen oo dee fankii waa la dhinteen imikana fanaaniinta imika jirta iyo abwaanada jira dee imika digarogoshaa jirta waan kaa dhex gelaya ayaa la iga raalaha oo halkaa iyadoo ah waa dee waraysigeenii sugaanta waa aad baan uga hadlaynaa aad baa beerka looga laagay oo waatan fanaaniintii oo u digarogtay abwaankii han idhaahdo abwaankii oo ka digarogtay abwaanimadii oo siyaasad u digarogtay fanaankii oo ka baxay fankii oo tabliiqi iyo diimeed iyo xidow noqday oo dhinacaya diinta u leexday oo dee qaar allahu tacaala oo imika oo kale dee fanaanin badan oo fanka ka fadhiistana way jiraan waxaan ku weydiin lahaa oo su-aasheeda hadalkaa aan imika aan usoo geliyo fankii laga digarogtay fanka raabka ma ku jirtaa laxanku raabka ma ku jira horta maxamedow sheeko wanaagsan baa taabatay saakadan markaan taasi waxaan daawanayay laba nin oo culaamada madaxa kusoo duubto khamiisyo culul yidhi fankii way ka fadhiisteen ma aragtay dadka ugu dhegaysiga badanna fanka waan hoo cidkaa dhegaysi badan laysmali labadaa nin waxaan arki waayay horta hal heesoo saamayn leh oo jumeel waa qodob kale heeska maxaaraanba music maxaaraanba iyo xaaraanaha waa dood kale laakiinse horta fankan aad ka fadhiisatay waaya dee fan aad halka sheeke ii sheekin jirtay waan ka fadhiistay dee kamaad fadhiisan awalba meelaad kasoo gashaanima waan garanayda laakiinse maanta waan dhegaysan karaa axmed saleeman bide iyo faysal cumsheegi allah u naxariista khadra daayeri allah u naxariista dee dadkaas hadday ku dhahdaan fankiiyo sugaanta waan ka fadhiisana waan dhegaysan karaya waayo waxaan garan karaa albaabka kasoo galeen baan u abtirinayaa oo aan la garanayaa iyo albaabka kasoo galeen baan u abtirin karo haye kuwa aan loo abtirinayn baa imika ka fadhiistay
weligii heesba kama maqan ragii qaar iminka marka yidhaah waanu ku fadhiisanay dee iminka tusaale ahaan waxaan ku sheegayaa maxamed mooge 63 afar statekii buu dhintay waa runta waxa ka dambaysay dhowr iyo 30 sano ilaa ma iyo maalinta maanta in joogno da'yarteena maanta joogtaa heesiisii heesaa maanta joogayna ku jecelna waynu dhegaysanaa maxay u dhiman waayeen dee wax micnalo ummadda hor keenay maxamed waa run ereyada uu ka hadlayay maanta heestayo $500 oo dhanaba isa soo geliyey oo fanaan iska dhigaya waxa ka saameyn badan maxamed moogo 3 statekii waan gartay laakiin iminka saameynta aadka u badanay fankii horena inuu dhintay oo inoo muuqday labadeenuba halkaa aynu abaarnay dee raabkiibaa iminka bedelay oo jiilka dambe dee laguma karayo in dee kamankii cuudka iyo miisigii iyo laxankii iyo ereyadii waana ma jirta waadi jiidhay waadi hormartay ereyada noocaasa oo raaba ayaa lagu dee iminka lagu aad u badan oo aad u socdo oo dee tigtiina dee socialkiina iminka waa ka qayb waayahay inagoo kasii gudbaynaa ayaala waxaan ku weydiin rabaa su-aasheeda xigtay de inkastood fara badan tahay aan horena ku idhi dhinaca iyo siyaasadaynu u leexanaynaa saameynta siyaasada soomaalida hadda taagan amba somaliland dalkeenii oo dee aada hadda ka maqan tahay saameyn aada u fara badan oo dee isqabqabsi iyo muddo kordhin oo iminka ugu dambeysa meydkaa maxaa ugu dambeeyay kaa lasii sidaa la yidhi oo muddo kordhin ayaa mar dhaweyd oo golaha wakiilada iyo siyaasadii oo dee faraha ka baxday ayaan loo siyaasadana dee adiga de qaybta socialka dee adigu waxaad ka tahay maxaan idhahdaa ayaa leh halka aan sii waday waa hagaag ayaa loo siyaasadaasaynu gelaynaa oo dee bal fikirkaaga dee nin siyaasadii dee aada u dhex galay oo taarikho badan haya oo taarikho badan oo aabihii qoray lasoo qoray dee history badanna waad haysaa hadda siyaasadda hadda taagan iyo socialka saameynta uu leeyahay nin walbada waa kan iminka si jaraa-id oo deg dega qabanaya waa siyaasigii meel lagu ogaa ee rogcadaag ahaa ee waxgaradka ahaa hadda adigu fikirka aad ka qabto iyo saameyntaay leedahay balwa noga yar bayaami waayahay niyahow aad baad umaadsantay jaanijasiisi qodobaan doonayna waad ka hadashay waa taargedyadayda nolosha taargedyadaan ku socda ee hongal siyaasaddu waa ka qayb hoy siyaasadeed baan kusoo barbaaray aabahay markaan idhaa adeerkay axmed yuusuf ducaale markaan idhaa waa hoy siyaasadeed ayaan kusoo barbaaray waana taarikhda meelahaan isleeyahay meelaha ugu badan eed saameyn ku yeelan doonto siyaasadda ka dhig niyow siyaasadda intaan kasoo dhegaystay intaan kasoo dheegay intaan kusoo koray markaan eego maanta siyaasadda somaliland taallaa siyaasad ma aha waa siyaasad lagu saabiday waa siyaasad lagu odhanayo hebel baa 2 cisho suu soo xidho siyaasi ku noqday waar maxaa tiraada ku soo celi siyaasadda hee halka igu soo celi siyaasadda maanta taagan waa siyaasad hebel 2 cisho oo suugayn soo xidho jirayd qabtay ayaa lagu odhanaya waa siyaasi marka anu waxaabanu aqaanaaba suugku siyaasi iyo shirjaraa'idku siyaasi shirjaraa'idku siyaasi siyaasadda soomaalida amba siyaasadda somaliland taariikh baan ku sheegayaa maxamedow taariikh 1960kii amba dhowr iyo 50kii markaynu kasoo bilowno saaxadda siyaasadeed ee soomaaliyeed darajay lahayd 1970kii markaynu taagnayn meel bay taagnayn 80kii meel bay taagnayn 90kii meel bay taagnayn siyaasadda soomaalidu amba somaliland markay baabaaday waa wixii ka dambeeyey 2000 oo nin kastaaba isku arkay nin suuqa iska jooga nin iska qaylaya nin iska militariya nin iska dabla ah nin iska kabanka iska tumanaya nin kastaaba uu yidhi siyaasi baa isla wax kale ma aha berigii hore waxa siyaasi noqon jiray oo la odhan jiray war ninkaasi waa nin wax soo bartay oo levelka taagan oo loo abtirnay oo jaamacada hiblaayo kasoo baxay nin la hubo oo dhan walba ka dhisan baa noqon jiray siyaasi waa kan abwaankii baa siyaasadda ku biiray haye maanta waxaad arkaysaa nin mareyka maqasha lagala quustay mareyka waad garanaysaa waa mareyka loo geliyo maqasha ee la yidhaha inta hooyadu halkaa fadhiisatay inanta yar ay u dirto ay tiraa heblaayo meesheedii soo qabo mareyka kasoo saar inantaa yari iyadoon sumad ayna u kala lahayn gashaasi
ayay mareegtii inta kasoo saarta u keentaa hooyada nin aan intaaba garanayn oo baadisoaba iyo noloshaaba garanayn oo lagala boostay laga alaabay ayaa lagu odhanayaa waa siyaasi oo naftiisa markaad akhrisatee taariikhdiisa weydiiso mugdi badani ku jiro siyaasaduna waa wax ummadda lagu dhiso oo waa ijtimaaci waa wax ummadda waxa soo socda 100 sano ee soo socda waa siyaasad lagu hagayo maaha laakiinse wax qof kasta wax qabyaaladeed ma aha waa wax qaran iyo ummad mujtamaca aqliyadooda dhaqankooda dhaqaalahooga ilbaxnimadooda dowladnimadooda horumarkooda waa wax lagu dhisa ayaa la yidhahdaa siyaasad laakiinse maaha siyaasaddu wax baraha bulshada lala soo istaago wax suldaan hebel lagu jawaabo wax muuse lagu nacmaleeyo wax ciro lagu nacmaleeyo maaha siyaasaddu waa istaraatiijiyad 100 sano shaqaysa ayaa caalamkuna u yaqaanaan xeerkeeduna yahay waan gartay halkaa iyo siyaasadda waxbarasho oo adigu siyaasadda ma baratay oo ma dhigatay siyaasadda oo heer jaamacadeed oo siyaasi jaamacad ka soo baxay hoog cadaaya ma tahay oo adigu siyaasadda ma soo baratay haddaan su'aal mayaanu jaamacadda 2 jaamacadood baan dhigtay lowga iyo politicalkan dhigtay iyo journalism soo jeedaya qayn almaani hadal kuma jiro de ganacsadana waan hayay ganacsadaha iyo laakiinse saaxadda siyaasadda horta saaxadda siyaasadda abuuriyan ee waan ku soo waa soo baratay politicalka waxbarasho umaan gelin laakiinse ana nafsiyad ahaan isbaray waan gartay ganacsiguna maxamedow wax kale kuma imanno qofku maaha markuu wax soo bartay oo jaamacada soo dhamay intuu meel fadhiisto inuu yidhaa ina hebel baan ahay oo meel baan fadhiisanaya waa inuu qofku wax la soo baxaa isagoo isa soo saaraa uu shaqaystaa ilaahow 2 baakilo sigaarana suuqa la fadhiista oo ku iibiye qofku waa inuu isagu wax qabsadaa isagoo aqoontiisa iyo wuxuu ku ficnaa haystaa horta ganacsiga taygelisay waxa wax kale ma aha waa aduu horta wax qabso uun si aqoontuna waa iman doontaa ma aha micnaheedu ina boobaan hoo journalism iyo saxafi iyo qoraaba noqon waayo intaan meel fadhiistay suuq xuranayaa habeen kasta waan hadlayaa laakiinse horta wax qabso hadda taagtaadu halkii joogto wax qabso baa ganacsiga geysi waan gartay waayahay siyaasaddaasaynu sii qaadaynaa waayahay ayaalo adigaa siyaasadda waa talantigaaga iyo hobbigaaga iyo choicekaaga inkastoo sharciga aad baratay lowga ma degree baad hayd mise ilaa waxaad ka gaadhay PhD jaamacadda okay waayahay sharci dejinta Somaliland hadda taagan nimankaynu u codaynay suulka u dhignay one man one vote waa adiga arkaya marxaladay marayso halkaana maxaad ka oran lahayd maxamed Somaliland dibkiisa taalo dib labaad ma taalo markaan intaan iska fiirin markaynu sharciyada eegno hal qodob un baa yaalo dibta Somaliland taalo waa hal qodob oo kaliya oo ah waddanka isku imid waxa ina mideeyay leeyahay waa lagu wada joogayaa waa dastuurka qaranka Somaliland dastuurka qaranka Somaliland aanu dhiganay aanu de qaybaha iyaga wax baranay lagu kamid ah waa wada qabiyo haye dawladda maanta joogta iyo baarlamaanka kasta jooga waxa loo doortaa wax kale ma aha dastuurka Somaliland oo hadii la dhameystiri kari lahaa oo la gaarsiin lahaa 80% maanta waxyaabo badan tusaale ahaan iminka madaxweynaha Somaliland madaxweynaha maanta jooga kaliya kama hadlayo oo ku shalay oo ku soo socda dastuurkeena iyo sharcigeena wuxuu ku wada dhamaadaa uu ku baabaa madaxweynaha Somaliland wuxuu ku dhamaadaa madaxweynaha Somaliland dastuurkeena waa inoo sameeyaa awoodda madaxweynaha waa maxay awoodda xubniga waa maxay awoodda ra'iisul baarlamaanka golaha wakiiladu waa maxay awoodda golaha guurtida waa maxay awoodda maxkamaduhu waa maxay waa dhaqaarada dawladnimada bal horta awoodaha intaynu kala socono ma kala saarnaa ma jirto dhibta Somaliland taalaana wax kale maxamed oo maaha waxba ha ku dawqin hebel qodob hebel babala waxaa soo dhan ma soconayaan dhibta Somaliland taala waxa weeye dastuur qabiyo ah oo la iska wada indha tirayo oo dhamaystir lahayn oo qodob lagu darayn oo madaxweyne ka bilaabay madaxweyne ku dhamaada marka waxaad leedahay dastuurka un baa madaxweyne ku bilaabma madaxweyne ku dhamaada marka awoodihii ay kala lahaayeen ma jiro waayo adaaba imika ku weydiiyay adaaban ku weydiiyay iyarkaadii ha ka dhex galo waayo awoodda madaxweyne adigu
dee sharci yaqaan baa tahay, awoodihii waad garanaysaa, inta awood ee dhiman inaad dee bulsho weynta ku daawanaysa aada u bayaamiso iyo qodobada ka dhiman dastuurka aada u qeexdo oo aad dee hadal iyo hilba kala qalane dastuurkaa qabya. kii shalay toole jaraa-idka oo si jaraa-id qabta ee siyaasiga dastuurkaa qabya. shicibkiibaa iska daaye nin aan siyaasad aqoon baa hore dastuurka waa tan wada siyaasi la noqda ee c v-ga imika la qaato siyaasadii iyo socialka ma ku jirtaa wey ka imo. waayo awoodaha dhiman aqoon-yahan, siyaasiyahan, sugan, abwan, intaba anigoo kule waa ayaalow adu awoodaha dhiman inaad bulshada aada u bayaamiso wixii aqoon ood aad ku dhaanto dee inoo iftiimi. awoodda madaxweyne ee dhiman waa maxay? awoodda sharci dejinta ee dhiman waa maxay? halkaa iga bilow. waayahay imika tusaale ahaan dastuurku markuu qodobada ugu horeeya saldhigga wuxuu ka bilaabmaa diinta shacbiyadani waa diinta islaamka, caasimadu waa tan caasimada qaranku oo qodobada ugu horeeya dastuurka lagu bilaabo. waan gartay waxa ka dhiman haye dastuurku wuxuu kala qaybsan yahay wax qodob laydhaa iyo wax xeer laydhaa. haye qodob hebel waxa qeexa, xeer hebel baa qeexa, waa ku qoran yahay. tusaale ahaan waxaa la odhanayaa maxamed hadduu qof wajaalo ku dilo xeer baa qeexaya, maxamed hadduu qof ku dilo burco xeer baa qeexaya. dastuurka qodobada ka madan ee meeshii ka maqani waxa weeye wuxuu yihi awoodaha madaxweynaha waxa qeexaya xeer. haye madaxweynuhu ma guddoomiyaha wakiiladu maamulaa, ma guddoomiyaha maxkamadda sare isagaa magacaabay isagaa xida, haye ma isagaa wax kasta dhameeyey isagaa kan kala samaynaya. waa su-aal meesha waxa guud ahaan aynu ku soo qaadanaynaa ee sheegayaa wuxuu yahay xeerkii qeexayay madaxweyne ku-xigeenka awooddiisu waa maxay, xeerkii qeexayay madaxweynaha awooddiisu waa maxay, xeerkii qeexayay guddoomiyaha ra-iisul golaha wakiilada baarlamanku waa maxay. xeerarkii baa dhiman meeshan, xeerarkii waxa soo saaraa wax badan baa dhiman. 75% xeerarkii dalkan u yeelay ee awoodaha kala saarayay kuma qorno dastuurka. oo waaba qabiyaba totally waa qabiyo. 75% waa qabiyo. okay marka waa in dee dastuurka haddii la hagaajiyo siyaasada somaliland iyo salka ay ku fadhiisan lahayd iyo ixtiraaf raadinteeda waa iska dhammaan lahayd haddii dastuurka la qabiyo tiri labaad leedahay. wallahi oo bilaahi oo tallaahi maanta aqoonsi xataa maynan xasuusaneyn 75% hadduu dhammaan lahaa. waan gartay. waayahay siyaasi imika ayaan loo haddii maanta ururka taageeri lahayd haddii de urur siyaasadeedadii waa tan imika la diiwaangelinayo oo madaxweynihii dib oo 2 sano loogu daray, golaha guurtidu waa kuwii ku dhawaaqay, arrinkaas waa kii iska soo dhammaaday, dalkii waa tii shidaal laga helay. mucaaridku wuxuu leeyahay xilligeeda hadday ku qabsoomi weydo annagu ma yeelayno. siidhiga waa tii la isku afuufay, waa tii dhagaha la barjeeyey, dadkii la dhaga barjeeyey ee dhagaha laga qaaday siyaasad. qof waliba waa ka hadlay hadduu aqoon layi haddaanu lahayn. may fahantay? urur siyaasadeed kee aad iyo aad ku biiri lahayd oo dooran lahayd ururadan cusub mise ururada xusbiyadii hore ayaad raacaysaa? keebaad ka xulan lahayd oo leedahay maanta ninkaas wax qaraya oo aan dooranayna? horta weliga xisbi ma raacin. haye urur lama raacin. ko laakiinse habeen horaan sheegay sanadkaa maanta waan gelayaa waxaana taageersanahay alamiirkayga maskaxdaydaba qabaa. haye ururka laydhaa horseed ee uu hogaamiyo mujaahid cabdilaahi dirawal. waan gartay. kaasaan taageersanahay, kaasaan raacayaa, kaasaan ku faraxsanahay, kaasaan ka dhacarkaa. qarannimadii iyo jamhuuriyaddii somaliland mabdii iyo quruxda lahayd iyo halkay u socotay iyo halkay ka socoto urur kala garanaya, ummadana u furayo meel hagaagsanna gaadhsiin karaa. odhan maayo aqoonsi buu keenaya, odhan maayo dahab buu inaga dhigayaa. laakiinse waxyaabo badan oo maanta loo baahan yayay urur keeni karaa, meel la gaadhsiin kara ururkaasaan u arkaa cabdilaahi dirawal hogaanka u yahay. waan gartay. cabdilaahi dirawal gobolkii gabiley de waa la magacaabay, ma noo ansixinaya halkaa anaga gobolkii baa noo doonta noo darane?
gobolka la magacaabay la ansixin liyahow maxaad ku raacdayse gobolka ama waxaan halkaa kale aaminsanahay maxaad ku raacday gobolkii waxbuu qabanayaa baad tiri wax qabad buu leeyahay oo waa nin maanta de kii horeba waa lahaa oo dee aduu codaynay farta eednay wax walba ka imo laakiin gobolkii ma noo ansixinaya cabdillaahi anigu labadiina wad anaan ku raacay gobolka maxamed oo gobolkana dhowr qoraal waan ka qoray haddaan jawaabta gobolka gibli ka horeeyo gobolka gibli muuse markii la doonayna waa sheegay muusena ma keeni karo madaxweyne ka dambeeyaana ma keeni karo de daahirna waa magacaabaya saddex xaalay u baahan tahay gobolnimada gibli ay ku xulan tahay oo ah kow haye waa xeerkii caasimada oo horta la keeno la dhamaystiro maxamedow markaynaan indhaha iska tuurin somalilan dhaqaalo adag oo ay ku taagan tahay oo rasmiya ma haysato welibana markaan kuleeyahay waa dawladda dhexe haye dawladda dhexe waxay qaadataa dhaqaalaha kala baybay qaadataa gabilay tusaale ahaan gobol bay noqotay ha gabilay markay gobol noqoto dhaqaalaha ugu badan waxaa qaadanaya gobolka gabilay ee kala bay gabilay baa maamulaysa haye dawladda dhexe wax yar bay halkaa ka qaadanaysaa gartay miyay kula tahay dhaqaalihii oo dhan ay dawladda dhexaana dhaqaalo badan ee aanu soo gelin in loo dayo gobolka gibley oo halka gobol laga dhisay iyadoo dawladdii dhexaana dhaqaala haysan maxamedow meesha mushkilado badan baa isbarbarkan mushkilado siyaasiyaa isbarkan mushkilado qabiliyaa isbarkan mushkilado xeerar baa isbarkan gobolnimada gibley kuma imanayso hebel baa halka soo istaagaya cidda sidaa u haysataana cid hagaagsan uma hayso waa cid aan og badan haynin gobolnimada gibley waxyaabo badan baa ka horeeya arrimo dhaqan dhaqaalaha dawladda dhaxaa ka horeeya arrimo dawladnimo seeska dawladnimo la dhisaa ka horeysa arrimo xeerar baa ka horeeya laakiinse wuxuu muuse keeni karo wuxuu cabdillaahi jira war ku dhawaaqi karo wuxuu cidra ku dhawaaqi karo wuxuu ayaanla ku dhawaaqi karo inta midna maaha waa gartay ayaaba waxaa tiri gobolka cidna ma keeni karta baad leedahay oo dhaqaalo badan iyo golaha xukuumadda ee dhexe ayaa de dhaqaaleyga hooseeya ayaad leedahay waa qodobkii koobaad waayo qodobka labaad ka soco kaa waa fahmay maxamed yusuf su-aasha labaad waxa weeye cabdiladiruur waxaa ku raacayaa ka uu horta muxuu dalka usoo maray intuu hogaanka hayay intaasoo sano waa raggii ugu wasiirada dheeraa ugu cumriga dheeraa muxuu soo qabtay taariikhda halku kuma muxuu jiro waa ka muxuu soco hayaanka hayaanka dawladeed iyo hayaanka dastuuri iyo hayaanka asxaabta qaranka ka soo dhisay waaye cabdillaahi jira warbaahintii waktigu adkaa ee somaliland dib loo aloosayey ee loo halgamayey duurka la joogay maalmihii dulsaarka ahaa libintiisa iyo cududiisa iyo caqligiisa intaba intuu intan u dhex tegey raggii wax ka soo horay buu ahaa raggii maalintan dhibanaa nafta horay buu ahaa taa wuu ku ammaanan yahay markii dalka la soo galay reer hebel muu raacin ole hebel muu odhan wuxuu ka mid noqday raggii al-alooska dawladnimo dhisayey xaggu doonaha ka soo galo dawladnimada dhinacyo badan baa laga dhisay xag asxaabid baa laga dhisay xag dimuqraadiyadeed baa laga dhisay xag haykal dawladnimoa laga dhisay xag hubka dhigis baa laga dhisay intaaba wuxuu ka mid ahaa raggii ugu firfircoonaa ee kaalintooda haddaanan odhanaynba kuwa koowaad buu ka mid ahaa maantana maalinta kursigiisii waayey isagoo nabadiya caana fadhiya ayuu si dimuqraadiya afkuu ka hadlaaye isagoo qorisita ila lama hadlo ee isagoo dimuqraadiyadda u soo halgamay welibana ay uga li badan yihiin aan shalay markuu isagoo halgamaya aan halgamin ayuu welibana dhegaystaa uu dulqaadkeeda leeyihi waxaanuna barayaa waxaasina waa dawladnimada oo waxyaabahan ku doortay waayahay hagaag ayaale boobe yuusuf inagoo soo koobaynaa oo dee barnaamijkeenii dabayaaqadiisii uu yahay waraysigii aynu wada yeelanay halkaa gobolnimada dee waxaad leedahay kan aan xushe ee urur siyaasadeed kan horseedna keeni maayo qodobo badan waynu ka bixi kula fahmay guddi ansixinta gobolnimada gabiley oo guddidaasna waad maqashay oo kolley dee sociaalka waad ku jirtaay oo waad daawatay xafiis baaba halkan ku leeyihiin kaasina waxaynu eegi doonaa falaaqaynteena dambe iyo waraysiyadeeda dambe aynu isku soo noqon doono maxaa tala iyo tusaale si wanaagsan baan ku maqlayaa maxamed waayahay hagaag ayaale boobe yuusuf waa waraysigeenii dee gebagabadiisii baan ku jirnaa samanka la joogo dadweynaha dee hadda nool ee samankan la joogo ee dee jira sociaalka halku maray wax walba waynu kasoo waranay oo waynu iswaraysanay waxyaala badan waynu iftiiminay maxaad fari lahayd bulsho weynta ku daawanaysa oo aad fariin aad fari lahayd oo halkan aad iminka aad ku gebagabaynaysaa iyo
هستي أو ده حسوسين بالله ده هستي نواد نو شيء هستي ما تيجي يلعلين سهرة قادسي عم بقى أدو نودور حتى هستي أن كوكب قبل لهم ورئيسنا وبرشوين تانو سيدينو waxaad u sii dayaan maxamedow waxaan kaa codsan lahaa u sii daysaa heesta saare axmed ee sida wagan gamaa faras wehelkayga caashaqa la wadaagi jiray halkaas waa heesta waayahay waanu sii daynaa bulshaweynta maxaad faraysaa gebagabadii baynu ku jirnaa bulshada somaliland waxaan farayaa inaad u midowdaan ood isku ururisaan qarannimadiina meel fog ayaad waxaa ka keentaan dhiig iyo dhaacaan baad u soo hurtaan naf iyo maal baad la soo huray dib u dhis badan baad soo samayseen wax badan oo laysku geystay oo aynu ummadaha dunida kaga soocannay ayaynu samaynay haynu ka baxno waxan yare qof jeclaysiga iyo waxan yare qof jeclaysiga iyo qabiil jeclaysiga oo wax dhammaanaya laakiinse waxaan dhammaanayn qarannimada iyo calanka iyo qadiyaddu wax dhammaanaya maaha waxan yar ee soke ee meelaha yare soke aynu ka fikirayno hebel wax laga cuna iyo hebel wax laga qaata aynu iska dayno dadka shaashadaha ku soo ilbaxay ee hebel kasta siyaasiga ah haynu dhaafno haynu u gudubno wax intan ka weyn dhalinyartana mid baan kula dardaarmayaa wax badan haynu akhrino wax badan haynu dhegaysanno wax badan haynu meelayno haynu iska dayno inaynu aragti yar oo dhow oo fog aynu waxayna iyo arrinkeenna ku dabaqno markaynu waxbaadhina research badan haynu samayno doodo badan haynu galno dhalinyarta waxa mid laba shay baan leeyahay wax akhriskana badiya inaad wax akhridaan inaad wax dhegaysataanna badiya inaad hadashaanna yareeya waa aqoon aada u badan ayaad faa'idi doontaa qaranka somaliland xulma marayo waanu ducaynayaa meel wanaagsan buu marayaa telefooyinka iyo buuqyara sokoway ka dhamaan doontaa waxay somaliland aqoon u leedahay واسوعد دعية تصالوا وحنو لنا هاي وين وحول بالبضيا وياهي كاس وحوها هجاج داوضيال ورئيس دينا والبطابة يا أو أيال بابا يوسف أو إيرلان شوجا عن ما أنت خد كسيتوسو كقراعي أيال آد بدو ما سنتهاي تلاذية تصالة داوضيا شوية داوض دولار يمكن تقول كل من دولار داوضيا وحن لا يداو شوعا وقتك صدايه ورحاك القعالك لو سيسكوها وقن كمان ولميرو وقتك صدايه ورحاك القعال كان لو سيسكوها وذنها يقديقا وإدارنا شركيغنا ما ورابنا ودنا هاي قديقا وإدارنا وحياها شركيغنا ما ورابنا وقتي دافيو أبنكي حسوستا وقتي دافيو أبنكي وعنايا وإذا ارتباني ولحسوستا وهلكي قال عاشقا وهلكيغان عاشقا لو ذاق جريبان ولي ويهيرا وهلكيغان عاشقا وهلكيغان عاشقا لو ذاق جريبان
وذيك لقي دقهاي قوانادو وما وعنيسي مرك الأول قلايا وآوي ليريبا أنا لي وحيوضو إيوران شعيلكو مرك الأول قلايا وآوي ليريبا أنا لي وحيوضو إيوران شعيلكو وقتي دافيو أبنكي وعنايا وإذا ارتبان والحسود